asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan halka aad nagala socotaanna waa idaacadda Sunguni ee magaalada tani Dobley. dhegaystayaal sidaad alaaba nooga barateen waxaan xilligan oo kale hawada idiin soo marinaa barnaamijka caafimaadkana maanta waxaan ku soo qaadan doonaa hadduu eebaydno gudniinka fircooniga ah, sababaha keenay iyo dhaqankaasi meelaha inta badan laga isticmaalo. haddaba waxaa xusid mudan in barnaamijkani ay soo qaban qaabisay islamarkaana ay fulintiisu leedahay hay-adda Solo Somali Lifeline Organization oo maalgelin islamarkaana kaashanaya ama ay soo maalgelisay hay-adda UNFPA. barnaamijka waxaa martay islamarkaana la qayb qaadan doono mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee deegaankani Dobley, Cabdullaahi Xuseen. Dr. Cabdullaahi, ku soo dhawaaw barnaamijka. ama sabta cabdi aan ku dhawahay barnaamijka qaabka quruxda badan barnaamijka igu soo dhaweysan aad baan kaaga mahadcelinay adiga iyo maamulka iyo idaacadda Sunguni. waad mahadsan tahay. dabcan waxaan filayaa inaad aad uga dharagsan tahay barnaamijkeena waxa uu maanta ku saabsan yahay. waa arrin dhibaato badan dunida ku haysa, gaar ahaan dalkeenan Soomaaliya. haddaba Dr. Cabdullaahi, haddii aan u guda galno barnaamijka, bal noo faahfaahi waa maxay gudniinka fircooniga ah, sababaha islamarkaasi keena in ilaa maanta lagu dhaqmo iyo inta badan meelaha dhaqankani laga isticmaalo. waata waan kaaga mahadcelinay cabdi qaabka quruxda badan ee su-aasha marka ay weydiisay jawaabteeda. marka haddaan guda galo gudniinka fircooniga ama waxa loo yaqaano FGM-ka waa caado dhaqameed markaasi looga dhaqmo oo wadamo badan oo caalamka ku yaala, gaar ahaan dhulka Soomaalida ay degtana wuxuu ka mid yahay markaa goobaha sida weyn gudniinka fircooniga muddo sanadaha looga isticmaali jiray ilaa iminkana markaa laga isticmaalo. gudniinka FGM-ka loo yaqaano waxaa markaa tilmaamaysa howl kasta oo markaa qayb ahaan ama gebi ahaanba lagu saarayo qaybta dibadda markaasi saxaha haweenka ama dhaawac kale oo loo geysto xubnaha saxaha haweenka markaa iyo saxaha haweenka, iyadoo sababtu aan ahayn markaa mid caafimaad oo dhakhtar ama wax kala caafimaad ku imaaday aysan ahayn. FGM-ka waa caado dhaqameed markaa oo waxyeelo leh. gabdhaha qaarkoodna wayna u dhintaan marka lagu sameeyo gudniinka fircooniga, ayagoo markaasi kala kulmaya marka qaarkoodna dhiigbax, bukaansho ama jeermis markaa gala, kuwaasoo toos uga yimaado marka FGM-ka. dhanka kalena haweenka waxay markaa noloshooda oo dhan yeelan karaan dhibaatooyin caafimaad, waxayna markaasi dhibaatooyin u keeni kartaa ilmo dhalista. mana jiraan faa'iidooyin caafimaad oo markaa marnamo dumarka ay u leedahay in markaa xanuunka ama ayraahde gudniinka FGM-ka lagu sameeyo haweenka. marka cabdiyo haddaan su-aashaada soo koobo, dalkan Soomaaliya ayaa markaa wuxuu ka mid yahay wadamada markaa caalamka tirada badan ee gabdhaha markaa gudniinka fircooniga lagula kaco. gudniinka fircooniga waxaa markaa ka dhasha dhibaatooyin caafimaad oo markaa badan, kuwa oo markaa soo ifbi'i kara mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba intaba. waa tahay Dr. Cabdullaahi, aad ayaad u mahadsan tahay sida faahfaahsan islamarkaasi su-aashaasi ugu horeysay. haddaba Dr. Cabdullaahi, dadka badan ayaa waxay isweydiinayaan miyay jiraan ama noocyo kala duwan oo gudniinka fircooniga ah, mase waa hal noocun? haddii aad wax nooga sheegto sideese hawsha gudniinka loo fuliyaa? mahadsantahay cabdi. mar kale gudniinka marka fircooniga marka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood inuu marka oo kala duwan inuu yahay. marka la eego qaybaha marka xubinta taranka haweenka marka laga jarayo, qaybta koowaad iyo qaybta labaad ayaa waxay yihiin marka qayb aad uga sahlan marka loo eego qaybta saddexaad ee gudniinka. waxa ay sameeyaan ayaa ah in marka ay qalliin ay ku sameynayaan xubnaha taranka ee marka gabdhaha, kuwaas oo loo qaybiyo qaybta koowaad iyo qaybta labaad iyo qaybta saddexaad. qaybta saddexaad ee markaa gudniinka fircooniga ah ayaa markaa waxay markaa tahay midda ugu daran isla markaana sidata dhibaatooyin badan oo markaa gabdhaha wajahayaan. waxaana qaybta saddexaad ay tahay midda markaa loo yaqaano qodbiga ama markaa tulinka la tolayo xubinka taranka haweenka.
qaybta fircooniga ee adag waxa ay tahay in marka gudniinka la sameynayo kadib la jaraa bishimaha marka la tolaa taana waxay loo yaqaanaa qodob gabadhiina waxay markaas loo reebaya oo keliya dulal yar oo ay ka kaadiso ama ay dhiigga markaas caadada uu kaga yimaado bas. waa tahay Dr. Cabdullaahi, haddaba waa maxay ujeedada loo sameeyo gudniinkan ama ilaa haatan loogu dhaqmayo, xaggaysa ku sugan yihiin ama inta badan looga dhaqmaa caadooyinkan? cabdiga gudniinkan gabdhaha waxaa aad markaa looga dhaqmaa qaar ahaan wadamada qaaratan Afrika markaa saxaraha koonfur ka xiga. hase ahaatee waxaa kaloo markaas jira dhaqamo dalal ka mid ah Aasiya iyagana dhaqankan uu ka jiro oo gabdhaha gudniinka lagu sameeyo. waxay markaa ku nool yihiin meel kasta oo markaa dunida ka mid ah, xataa qaaradda Yurub iyo Ameerika markaa wadamada horumarsan ay ku yaalaan. waa tahay, haddaba waa maxay sababta dhaqankan loogu dhaqmayo ama loo sameynayo hadduuba dhibaato u leeyahay dumarka? cabdiyo sababta waxay noqonaysaa bulshooyinka markaa ku dhaqma gudniinka noocan ayaa waxay markaa adeecsan yihiin in gabadha aan markaa la gudin aysan markaa guursan karin, carruurna dhali karin ama nolol sharaf leh ku noolaan karin ayay markaa aaminsan yihiin. inkastoo dhaqankan hadda uu mamnuuc ka yahay wadamada Afrikaanka uu aad markaa ugu faafsanaa oo idin iyo wadamada qaxootiga ay soo galaan, weli gudniinka gabdhaha waa la sii wadaa. markaa sababta waxay markaa sii taageeraya arrimo badan oo markaa dhaqameed oo dadka ay cuskanayaan oo jin iyo ka jin ay u haystaan ama ay aaminsan yihiinba. marka sababan oo dhan markaa maanta UNHCR hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay waxay markaa u aqoonsatay inay yihiin qaab markaa cadaadis ah oo markaa loogu takoorayo koox gaar ah, haweenka, hablaha iyo gabdhaha, kuwaas oo markaa u keeni kara dhimasho ama musiibo socod. haddaba yaa sameeya gudniinkan fircooniga? ma meel loogu talagalay jirto, ma isbitaalaha jirto, mise dad khaasa ayaa sameeya? qaabkee loo fuliyaa gudniinka? cabdi waa su-aal aad u muhiima oo meesha iyadana ku jirta. badanaa gudniinkan waxaa sameeya dumarka markaa loo yaqaano umulisa dhaqameedka, oo kuwaas oo markaa da ahaan badanaa ka sareeya 60 sano oo markaa haween aad u waaweyn ah oo aragga indhahoodana aanu sax ahayn oo araggii uu daciifay markaa isticmaalaya qalab aan markaa nadiif ahayn oo markaa gudniinka ay gabdhaha u adeegsanayaan. markaa gudbin karana xanuunada lagu kala qaado qalabka aan markaa nadiifka ahayn sida HIV AIDS-ka iyo kuwo kale markaa oo aad u halis ah laga yaabo in gabadha ay halis u gasho nafteeda darteed. waa tahay, marka qaabkay u sameynayaan haweenkani da-da aad sheegtay ama la dhihi karo waa kuwa shaqadan soo qaban jira oo lagu kalsoonaan kara ayaa dabcan loo doortaa da ahaantoodaas. marka qaabkay gudniinkan u sameeyaan fircooniga ah? waata cabdiga waa su-aal aad muhiim ah oo markaa meesha ku jirta. marka hore hawshan la qabanaya inta yar waxaa markaa goobta lagu keenaa hab khiyaano oo la soo sareeyo, markaa lagana qarinayo in lagu wado markaa halkii lagu gudi lahaa ama haweenka gudi lahaa ay joogaan. marka goobta la geeyo waxaa markiiba markaa isu qabta dhowr haween oo dumar ah oo markaa la shaqeeya islaanta sameynaysa gudniinkaas ama gabadhaasi gudaysa. marka waxay si arxam darro ah markaa u qabtaan inanta yar iyagoo dhulka ku xajinaya oo markaa si aysan dhaqdhaqaaq aysan u sameynin maadaama aan loo adeegsanin cirbada suuxisa ama kabaabyada si aysan xanuunka u dareemin, taasoo markaa sababta xanuun markaa xad dhaaf ah oo waayo waxaa la jaraya markaa xubinta jirkeeda ugu dareenka badan. marka waxaa laga yaabaa in inanta dhibaatooyin ba ay ka soo gaaraan xilliga hawshaasi lagu guda jiro. waata aad baad u mahadsantahay. ugu dambeyn Dr. Cabdullaahi, waa waxyaabo badan ayaad nooga soo sharaxday qaabka loo fuliyo iyo meelaha looga dhaqmo. haddaba dadkani qalab noocma ayay isticmaalaan, mase yihiin dad khibrad u leh waxa ay qabanayaan, shaqada ay qabanayaan? waata xamdi su-aasha hadda ay weydiisay hadda markaa khibrad ahaan dhanka markaa haweenka sameynaya khibrad ahaan may wax khibrada weyn oo ay sii qabaan ma jiro, waana un wax dhaxal ay ka soo dhaxleen hooyadeed ayeedeed oo markaa ay soo arki jirtay waa wax ayada lagu soo sameeyey oo marka dhaqan ahaan weysata diyaar u tahay gabadheeda iyo gabadha kasii dambeysaba marka in lagu sameeyo ama haa saa dhaqan ahaan ay ku soo baratay waalidkeed uga tageen waaye. midda aad u xanuunka badan ayaa waxaa tahay qalabka loo adeegsanayo
nadiif ama af lama waxaa laga yaabaa qalabkaas in ay sanadooyin badanba meesha yaaleen oo dad fara badan ama gabdho fara badan lagu soo guday ayna gudbin karaan xanuuno badan aad iyo aad ayna gudbin karaan maadaama jeermis dilyaal aan loo isticmaalin ama aan la gelin oo laga yaabo in meeshii la saaray intii hore bishii hore lagu gooyo kale in maanta laga soo dejiyo haddana tan maanta lagu gooyo dhibaato caafimaad oo ay ka dhalan karayso aad ayaad u mahadsan tahay dr cabdulaahi iyo dhammaan dhegaystayaashanada meel walba ay joogaan waxaad si toos ah noga dhegaysanaysaan idaacadda sunguni ee magaalada tani dhobley barnaamijkeenii caafimaadka ayaan ku guda jirnay oo maanta aan ku soo qaadanay arrimaha ku saabsan gudniinka fircooniga iyadoo uu marti noo ahaa dr cabdulaahi xuseen isla markaana waxyaabo badan nooga taabtay qaabka loo isticmaalo gudniinka fircooniga sababaha iyo waxa uu yahayba dr cabdulaahi aad baan kaaga mahad celinaynaa fursadda qaaliga aad noo soo hurtay iyo barnaamijkani iyo cilmiga badan ee maanta aniga iyo kuwana dhegaystanayaba aad u siyaadaysay idinkuna cabdi aad baan kaga mahad celinaya sidaas fursad noogu siisan inaan markaa ka wacyigelino dadweynaha dhibaatada xanuun gudniinkan uu leeyahay waa mahadsantahay